بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وحنون فيرتشوال أكاديمي. حنون فيرتشوال أكاديمي أو نكسو قدبنو مادوين كلاغا برتو من دوكسيغا سارة إلا هير جامعة أنو دور قيبود أو موضوع كان كديسان أو ترانسبورتيشن موديل أنو كسو قدبنيني إيا مانتنا وحانو سو بندقينا أمان سؤالك غشقينا موضوع statistics أدو إلهي جراء aniguna waa anigoo abaadir daahira. okay. saan wada ogsoonahay waxaan usoo qaadanay mowduucan waxa weeyahan waa mowduuc aada maxalli ah oo aada loogu baahan yahay oo job opportunitiesuna uu aada u fiican yahay. waxaa laga sameeyaa mowduucan data scientist wuxuu qaataa boqol iyo soddon kun oo dollar buu qaataa. ka ugu badan baa $160,000 oo qaataa. ka yarna waxa ugu yarna wuxuu qaataa 770 min gaabka ilaa intaas oo dhaxeeyaan. marka data mining, data analytics iyo data scientist intaba waa mowduuca waxa weeyaan qaybta statistics iyo marka ayaa laga dhigtaa. marka anagu waxaan ka bilaabaynaa statistics qaybtiisii dugsiyada hoose lagu soo barayay ayaan kasoo bilaabaynaa ilaa min advanced form of statistics baan haduu ilaahay yidhahdo aan ka shaqayn doonaa. maanta xaggan waxaanu kusoo qaadaynaa waxa weeyaan waa classification and the tabulation of statistical datas. markaasi statistikaas inta u kala baxaan iyo si loo sharaxi lahaa ayaan falowgeeda galaynaa. markaan aan isla qeexno kadib yaan insha allah qaybaha kale yaan gali doonaa. qaybtan waxaa ka horeysay qayb kaloo data collection and organization baa ka horeysay. qaybtaas markaa hadduu ilaahay yidhaahdo iyadana waxaan kusoo dhigi doonaa research methodology and its application iyaan mawduuca wasaan isagana yaan kusoo dhigi doonaa maadaama uu theory u badnaa. qaybtana insha allah usoo gudubnay. marka bal aanu gudo galno maanta waxaan soo diyaarinay. marka imika waxaana la siiyey su-aal baa la siiyey. su-aashu waxay leedahay form a frequency distribution from the following data by inclusive method taking 4 as a magnitude of class interval baa layidhi. imika xaggan waxaa samaysaan baa layidhi frequency distribution sameeya idinkoo isticmaalaya inclusive method. marka laba method baa jira, mid waa inclusive midna waa exclusive. marka kan waxaa laga shaqeynaya waxa weeyaan waa inclusive. marka inclusive iyo exclusive iyo teoriyaashaas waxay ka dhigan tahay insha allah gadaal baan ka shaqeyn doonaa. marka xaggan waxaana la siiyey daataagiiba xaggana la siiyey oo mid walba laga soo qaaday ka koobada 15 17 15 22 saas ayaana loo siiyey as well as waxaa haddana la siiyey xaggan class intervalka inta u dhexeeyana marka waa 4. marka kani kasoo shaqeey oo frequency distributionkiisa sameeya baa layidhi. marka saan aanu samayn lahayn, marka koobaad waxaanu sameynaynaa daatagii xaggana la siiyey iyaan increasing order baan yaan u qeexayna ama u dhigaynaa. increasing order macnaha ka ugu yar baan ka bilaabaynaa, ka ku xiga ilaa ka ugu dambeeya ugu weyn baa markaas sidaa u sharaxaynaa. marka stepkaas mar walba waa lama huraan wuu noo fiican yahay la sameeyo. data walba sana loogu dhiibo ama ka kalaba haddiina la siiyo first of all waa inaan increasing order aan dhignaa. okay. marka increasing orderkii markaa waxaan ku siinay wakaa 10 10 11 12 13 14 15 16 wixii daataagii xaggana lagu siiyey markaa sanaan usoo sheegnay ka dhigan tahay. deenta kaga xigta waxaana la yidhi waxaanu raadinaynaa class intervalkeenu waa 4 as well as waxaanu ka bilaabaynaa the minimum value waa 10. marka daataagan wuxuu u dhexeeyaa 10 waa minimum value, maximum value-guna waa 38. that means lower limitku waa 10, upper limitkuna waa 38 marka uu row data noocan u yahay. marka uu group u yahayna labada class ee isu dhaxeeyay markaa noqon doonaa. then marka maxaan sameynaynaa eeg xaggan waxaan haysanaa 10 sooma 10 baan haysanaa. class intervalkeenuna waa 4. marka maxay noqonaysaa 10 10 11 12
iyo 13 intaas waa hal class buu noqonayaa. haddana waxaan ka bilaabaynaa 14 15 16 17 isaguna waa wuxuu noqonayaa classka labaad. maadaamana la yiri inclusive maadaamana la yiri waxaan ka shaqayn doono group ma noqon doono. marka xaggan aan ku soo sheegnay waa kan waa it's inclusive method. 10 kaasaan ka bilaabaynaa 10 marka 10 ilaa iyo 13 maxaa u dhaxeeya 4 baa u dhaxaysa. that means groupka marka waxa soo dhax galaya 10 kaas laftirkiisa 10 kaas 10 kaas 10 kaas 10 kaas 13 kaas intaasi hal class bay isku noqonayaan. 13 min 14 maxaan oran weynay aan uga bilaabnay 14 kaas because 14 waxaan uga bilaabnay waxaan la yiri waa inclusive marka iskuma dhex jiro ka dhigan tahay 14 min imsu noqonaya ka kalena 14 ilaa 17 macnaha 14 marka lagu daro xagga 14 marka lagu daro 4 oranina khaldaminina liano 14 laftirkiisa la tirinaya 14 15 16 17 waa 4 ayaa u dhaxaysa meesha ay ka dhigan tahay labadaas. زين marka sanaan u wada sharaxnay marka class su'aashina la weydiiyay waa tan frequency distribution table ka sameeyay la wanaagsan ka saabsan sameeynay. marka xagan maxaan isticmaalinaa tally mark bal isticmaaliya tally mark macnaha sidee san u ogaano baaxadda lamba tirada meesha ku jirto san u ogaano ya tally mark loo sameeyaa. tally mark waxaan ugu soo daray maadaama junior kids waa wax aad u fudud isku wada ogaan karo. marka classkii ugu hoosayay baan kasoo bilaabay ilaa heer jaamacadeed baan socon doonaa insha Allah. okay xagan 10 min 13 intee baa u dhaxaysa waxa u dhaxaysa 10 kaas 10 kaas 10 kaas 12 kaas 13 kaas. marka intee bay noqonayaan waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 taas weeyaan. marka xagaas waxa lagu qorayaa taali markiisuna maxay noqonaysaa nooca saa talsameey yaa saa lagu xiraata gadaal saa u socota waxa tilmaamaysaa marka af la gaaro taas lagu shaneeyaa. zeen okay xagga warka 5 xagaasan ku isna ka dhigantaa min 14 ilaa 17 inteen haysanaa 14 ilaa iyo 17 ilaa xagga waxaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 baan haysanaa ka dhigantaa. that means 1 2 3 4 5 6 7 8 baan noqonaysaa. marka 8 baan xagga haysanaa. inta ku xigta 18 min 12 18 min 12 inteen haysanaa waxaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 baan iyadana haysanaa. talimarkiisina waa kan 1 2 3 4 gadaal baa loo xirayaa 1 2 3 idin 8 baan haysanaa. okay maxaa ku xiga 22 ilaa 25 22 ilaa 25 waa imsaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 baan haysanaa xaggaana. shan lix toddoba okay waa toddoba baan haysanaa xaggaana. maxaa ku xiga 26 ilaa 29 26 ilaa 29 kow 2 3 4 5 baan haysanaa xaggaana. 1 2 3 4 iyo 5 xabadu ku xiriyaa kan waa 5 iyadiina. 30 misaan haysanaa 1 2 3 4 baan haysanaa iyadana. 1 2 3 4 xaggan maxay haysanaa 4 baan haysanaa. ku xigta maxay noqonaysaa 34 ilaa 37 34 ilaa 37 misaan haysanaa 2 baan haysanaa. 1 2 ka xaggaas 2 baan haysanaa. tii ugu dambeysay waa 38 hal baan ka haysanaa. 38 xaggan maxaan ka haysanaa ka dhigan tahay hal. that's all. markaa su-aashiina la weydiiyey xaggaas ku kooban tahay laakiin mar walba waa inaan maxay sameynaa waa inaan isku darnaa oo tootaalka xaggan aan kusoo sheegnay iyo tootaalka kan su-aasha waa inay isku mid noqdaan. so 10 14 15 16 kuwan waa maxay lower limit fa la yidhaahdaa. inta kalena maxay noqonayaan upper limit of class intervalkoodii bay noqonayaan ba ka dhigan tahay su-aashaas xaggaas aan gudubnay. su-aasha xigta haddana waxaana la siiyey
prepare a frequency distribution of a number of a letter in a word from the following script ignoring punctuation marks today. marka xaggan oraah buu xaggan naga siiyey oraah la yidhi oraahdan uu markaa yidhi erayaasha frequency distribution ka sameeya erayaasha oraahdu markaa maxay leedahay in the beginning said a Persian poet Allah took a rose, a lily, a dove, a serpent, a little honey, a dead sea apple, and a handful of clay. When he looked at the amalgam, it was a woman. marka adu waa oraah maama hore oo adu Persianiintu ay sheegi jireen wax weeyaan markaas wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu qaatay ubax iyo shimbir iyo inyaro malaba iyo haddana apple markii uu isku laaqay uu saa u fiiriyay waxay noqotay macnaha ayuu leeyahay gabadh bay noqotay ama haween bay noqotay marka ayuu uga jeedaa adugu wuxuu ka tilmaamayaa dumarku inay halbowlaha ay wax walba oo laysku keeno ay spiritual natural iyo wax walba inay iyagu ay yihiin bayuu saa ayuu sheegayaa ay saas u sheegayaan walaakiin ana markaan saa u macnaystay waxay la noqotay dumarku waa materialistic way ka helaan wax materialka ayaan noo qaatay anyhow whatever it is anagu aan ka shaqeyn su-aashu say tahay su-aashu waxay leedahay the number of words with 6 letter or more idinkoo waa imisa buu yidhi the number of words with erayaasha 6 xaraf ka kooban ama ka badan waa imisa the proportion of words is 5 letter or less boqolkiiba inteeba ayaa kaga jirta xarafyaasha 5 eray ka kooban ama ka yar the percentage of words with a number of letter between iyo percentage-ka min 2 ilaa 8 inta u xigtahay waa m7 la yidhi marka it is simple saan u shaqay lahayn marka koobaad on maamahdan la siiyay mawraahdan la siiyay baan xarafyaashooda u tirinaa matalan intaas imse leedahay 2 leedahay waa 2 baad qoraysaa zaad maxay leedahay 3 beginning-gan muxuu leeyahay 1 2 3 4 5 6 9 buu leeyahay 9 marka 2 3 9 tan 4 hal saasaan marka hore u yaan u qeexinaa then waxay noqonayaan markaas wuxuu noqonayaa raw data oo lambar ahaan buu noqonayaa marka anagu aan ka shaqeynayno su-aashan waxa ay noqonaysaa marka koobaad let x dono x ayaan assume baan ka dhignay s the number of letter inay noqoto in each word is in the given sentence inuu x inay noqoto ayaan ka doorbinay then the corresponding value of a variable x is above experienced are as given below marka waa kan 2 3 labadaas waxay ka timiday waa intaas saddexdaas xagee ka timiday waa zadaas sagaalkaas xagee ka timiday waa beginningaas afartaas xagee ka timiday waa saidkaas halkaas xagee ku yimiday waa eedaas toddobadaas xagee ka timiday waa Persianka marka kan gabi ahaantiisii markaas loo qaaday sanay noqon marka xagan muxuu leeyahay goordhow muxuu ahaa excluding ma wuxuu yiri ka ilaaliya buu yiri markiyaashaas punctuation-ka iyo point-ga iyo intaas kuma dhex jiraan waxa la rabaa xarfaha bal la rabaa marka xarfihiisa aan soo qaadanay then ka bacdi maxaan sameeynaa sidaan goordhow sheegnay inta maxaan sameeynaa increasing order waa inaan mar walba ku sheegnaa waka increasing order-kiisa aan ugu sheegnay in simply maxay noqonaysaa data-ga muxuu dhaxayaa min 1 ilaa 9 buu dhaxayaa ka dhigan tahay so marka maxaan seen u qaaxi karnaa 1 2 3 ilaa 9 intaan raano yan kow intee ka jirta 2 intee ka jirta 3 intee ka jirta saa aan soo dhigi karnaa ka dhigan tahay marka looma sheegin inaan group ka dhigno ama aan group aan ka dhigno marka sida noogu fudud waxaan qaadan karnaa waxaan sameyn karnaa maadaama data gu yar yahay 1 2 3 ilaa 9 baan dhigaynaa marka 1 2 3 4 7 8 kuma jirto ilaa 9 ilaa 9 markaan dhignay kow intee kaga jirta kow waxa ku jirta 1 2 3 4 6 7 8 9 oka 9 baa kaga jirta laba imisa kaga jirta 1 2 3 4 5 baa kaga jirta saddex imisa kaga jirta 1 2 3 4 5 the same thing procedure saas wada dhigana xagana ku soo qorinaa su-aashii la weydiiyey sidaasaan ku dhamaynay way ka dhigan tahay this is elementary
because waxa uu yara degdegayo waa meelo kale oo ka yar adag baan u soconaa soo inaan la soo qabsataan baan doonayaa okay marka maxayna la yiri su'aasha xaggan jirtay ta koowaad waxay ahayd the number of words with 6 letter or more xarafka 6 xaraf ka kooban xarafka wordiga 6 xaraf ka kooban ama in ka badan waa kee waxa weeyaan okay 6 wax ka badan kan hal buu ka kooban yahay kaas laba ka kooban yahay kaas saddex buu ka kooban yahay afar buu ka kooban yahay kaas shan buu ka kooban yahay kaas 6 buu ka kooban yahay Soomaa marka 6 wax 6 ka kooban ama in ka badan then waan isku dareynaa intan 4 9 5 5 9 intaas isku dareynaa ya no 6 inta ka badan wax weeyaan waa 2 waa 4 waa 1 intaas isku dareynaa laanahu 6 xarafka ka badan buu yiri 6 ma 6 iyo 6 wax ka badan kan 6 xaraf uu leeyahay kaas 7 xaraf uu leeyahay kaas 9 xaraf uu leeyahay ya xarafkaas wuxuu leeyahay imsa eray uu leeyahay eraygaas imsa xaraf uu leeyahay eray 6 xaraf eraygaas imsa xaraf uu leeyahay 7 xaraf eraygaas imsa xaraf uu leeyahay 9 xaraf marka su'aashu waxa la weydiiyay eray 6 xaraf wax iyo wax la ama wax ka sii badan waa kan iyo kan iyo kan imsa kaga jirta 2 kaga jirta ka imsa kaga jirta 4 kaga jirta ka imsa kaga jirta 9 kaga jirta saddexda marka la isku daro 7 xaraf 7 eray ayaa jira guud ahaan waa 7 kan ay ka noqon tahay 7daas marka xagan inta ka sii wada dhex fiirino for simply marka matalan beginning kaas oo kale uu noqon kaas oo kale ku jira Allahu musta'an Persian kaas oo kale ku jira woman kaas ku jira amalgam kaas ku jira marka xarafyaashaas waa imsay noqonayaan ka dhigan tahay waa 7 su'aasha koobaad xagan ta kale leeyahay maxaa lagu the proportion of words with 5 letter or less 5 xaraf iyo wax ka yar 5 xaraf iyo wax ka yar waa ka waa 4 5 xaraf iyo wax ka yar waa intaas la jeedaa 5 4 3 2 1 waa intaas la jeedaa marka 5 imsa ka jirta 4 4 imsa ka jirta 9 3 imsa ka jirta 5 2 imsa ka jirta 5 hal imsa ka jirta 5 intaas aan isku dareynaa laakiin xagan maxaa la weydiiyay proportion baa la weydiiyay proportion marka maxaa oranaynaa intaas marka hore isku dareynaa markaan intaas isku darno waxay noqotay intaan isku darno ayaan u qaybinaa maxaa jeeda totalkooda u qaybinaa totalkooda markaan u qaybino maxaan leeyahay 0.82 ama 82% ayaa kaga jirta ka dhigan tahay boqolkiiba 82% baa kaga jirta proportion baan weydiiyay xagaas marka percentage hadii la weydiin lahaa boqol baa ku dhufan lahayn laakiin maadaama proportion la weydiiyay saas awgeed ayaan xagaa ku joojinay okay ta kale xigta maxay ahayd inta u dhaxaysa 2 ilaa 8% koodu waa imsa inta u dhaxaysa 2 ilaa 8 2 xagaas ku bilaabaya 5 ku dar 10 19 la 23 marka 2 lagu daro 5 29 bay noqonaysaa marka 29 oo loo qaybiyay 39 lagu dhuftay 100 bay noqonaysaa marka ka 24 loo qaybiyay 39 lagu dhuftay 100 waa boqolkiiba imsa ka jirta 61 su'aashana saasan ku waa su'aantii baa muujinayaan jeclay okay aanu si gudubno su'aasha qaadana waxa xagan la weydiiyay in a survey baa la qaaday buri it was found that 64 families bought milk 64 qoys maxay iibsadeen caano iibsadeen in the following quantities sida xagan ku hoos xusan buu yiri in a particular week toddobaad using Struggles rule convert the above data into frequency distribution by inclusive kana ogsoonada xagan maxay waa inclusive totalkiina maxay sanaa 64 okay tii hore maxay kaga duwan tahay tii hore waxaa la weydiiyay waxaa la siiyay class interval kiiba kii horeysanay oo 4 ahaa laakiin kan imka class interval ma haysano marka maxaa la yiri frequency distribution sameeya saynu sameeynaa saynu kala qaybnaa ma 4 baan u qaybinaa ma 2 baan u qaybinaa ma 3 baan u qaybinaa marka xagan maxaan u baahanaa inaan isticmaalo formula isticmaalna formulaas ma ayaa
ninkan iyaa markaa professor Stragas baa yaa soo saaray ka dhigan tahay. Then professor Stragas wuxuu soo saaray waxa weeyaan professor Stragas wuxuu soo saaray marka koobaad datagan sidii aan hore inaan ugu shaqeyno doonay. First of all waxaan sameeynaa increasing order baan waa inaan diyaarinaa. Increasing order markaan diyaariyo shan buu ka bilaamayaa 39 wuu ku dhamaanayaa. marka maxaan ku darinaa class intervalkii baan ku daraynaa. shan lagu daray class interval muxuu noqonayaa min shan laga bilaabo ilaa saasuu noqonayaa mo laakiin xagankii class intervalkii ma haysano. marka inaan taa kusoo saarno maxaan isticmaalinaa formulagaasaan isticmaalinaa. formulagaas muxuu yahay formulagaas waxaa la yidhahdaa the number of class interval waxaa lagu helaa k 1 plus 3.322 logarithm of 10 of n. n waa maxay waa number of observation ama number of class interval. k waa class interval and the n is total frequency tiradooda guud ayay noqonaysaa. keeduna waa class intervalkii markaa inaan raadino. keeda markaan raadino kabacdi iyaan lower boundary iyo upper boundarygaas markaa intaan ku dardarno ayaan helaynaa bay ka dhigan tahay. then hal lagu daray 3.322 logarithm of 10 oo ah xaggaas mid noqonaysaa in meeshii inaydan maxay haysanaa meeshii inaydan waxaan haysanaa 64 baan haysanaa. waka meeshii n waxay la mid tahay waa 64. then marka 64 baan xaga gelinay. marka taa gelinay waxay noqotay hal lagu daray 3.332 lagu dhuftay logarithm of 10 64 waxaan helaynaa 1.8062. I hope inaad si loo raadiyo inaad garanaysiin baan u malaynayaa. it's obvious ama calculator isticmaala. then markaan isku dardarnay waxay noqonaysaa approximately 7 waa 7.0002 maadaama tahay approximately waa 7. marka 5 yaan ku daraynaa bay ka dhigan tahay maxay yaa. then haddana rangegeeni baan raadinaa. rangegeeni waa maxay waa maximum value minus minimum value. intaa u dhaxaysa rangegeeni waa imisa waa 34. okay markaan rangiga aan raadino kabacdi waxaan haddana usii guulagadaynaa waxaan raadinaa haddana size of class interval. class interval baan raadinaynaa. goordhow imika 7 maxaan raadinay class intervalkii baan markii hore raadinay. class intervalkii baan raadinay. imika marka maxaan raadinaynaa bay ka dhigan tahay waxaan raadinaynaa class size of class interval. class intervalku waa maxay waa 1 2 3 4 5 6 say u kala horeeyaan weeyaan. size of class kuna markaa imuusu noqonaya. size of class isagana qaacido kale lagu heliyaa. qaacidada lagu heliyo maxaa la yidhahdaa waa range over number of classes. number of classes already waa helay waa 7. rangegeennina waa imisa waa 34 ama saas lagu shaqeynaynaa ama rangegeennii oo 34 ayaan haddana u qaybinaynaa n-daas 64. labada option baa ka shaqeyn karnaa. then markaan ka shaqeyno maxaan leeynaa widthgii ama class widthgiini intervalkeeni waa 5 buu noqotay ka dhigan tahay. okay then imika maxay ka dhigan tahay qaacidadii aan kor dhaweyd waxaan helay baa ahayd inta table inta row 1 2 3 4 5 6 7 row baan leenahay. class widthgeenina 5 iyo ilaa intee buu yuu noqonayaa lower class iyo upper classka inta u dhaxaysay waa 5 baa lagu darayaa ka dhigan tahay. that means 5 up to 9. marka imse noqonayaa 5 bal 5 6 7 8 9 waa 5 bay noqonaysaa. waa 5 number bay noqonaysaa marka lagu daro. that means 5 up to 9 waa classkeena koobaad. classka xigay inclusive baan leeydi maadaama inclusive na yiri 9 kama bilaabino ta ku xigta ka bilaabina 10. marka imsaan ku darayna 4 iyo 10 maadaama 10 ay ku jirto xaganta ka ilaa 4 iyo 10 5 iyo 10 ilaa 6 iyo 10. marka waa imsa xabo 1 2 3 4 5 6 7 marka saas rectangle saas u noqonaya. that means sana usoo sharaxayna frequency distribution waa kasa taali markii saas u noqonaya. marka haddana maxay imaanayna xaggan imaanayna 5 up to 9 5 up to 9 5 up to 9 imsa ku jirta 1 2 3 4 5 6 7 todobadaas ku jirta. 10 up to 14 10 up to 14
kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal tobankaasaa ku jira. That means saasa kuwa kale yaa laga wada dhexraadinayaa. saasaan ku helnay frequency distributionkeeni saasaan ku sameynay ka dhigan tahay. Okay, haddana su-aashan xigtaan haddana meeshan gelinaa. If the class midpoint in a frequency distribution of age of a group of person are xaggana waa su-aal kale. su-aal kale waxaana la weydiiyey midpoint. midpoint waa maxay? midpoint waxa weeyaan class lower limit iyo upper limitka marka labadaas inta la isku daro laba loo qaybiyo waxaanu helaynaa midpointigaasaan helaynaa. marka midpointigii baa xaggana la siiyey. midpoint markana la siiyey maxaana la yidhi the size of the class interval raadiya, the class boundary-ga raadiya, iyo class limit assuming that the age quad in the age complete last birthday. Okay, have a look. marka imika kanisa looga shaqeynaya waxaa looga shaqeynayaa marka koobaad maxaan sameynaa increasing order bay ahayd isagii uu sameeyeyba. then maxaan raadinaa size ama i see loo raadiya i waxaa loo raadiyaa range over height the difference between the mid value of any two consecutive classes. waa class labadii saa isugu xigta iyaa la kala jarayaa. marka labadaa la kala jaro maxay noqonaysaa bay ka dhigan tahay waxaan helaynaa class intervalkii baan helaynaa. that means 32 marka laga jaro 25, 46 marka laga jaro 39, 60 marka laga jaro 53 gebigooduba waa isku wada mid. misay noqonaysaa 7 bay noqonaysaa. marka 7ku waa maxay? waa class intervalkeeni weeyaan. class intervalki imka waan helay. class intervalki markaan helay maxaan la yidhi xagga raadiya the class boundaries baa la yidhi. class boundarieska marka maxaa lagu helaa? qaacida baa lagu helaa. qaacidada lagu helay waa maxay? the difference kaa koobaad maxaan sameynaynaa? waan ka jaraynaa ka 25 minus class intervalkeeni oo 7/2 maxaan helaynaa marka? muxuu noqonayaa lambar baan helaynaa. lambarkaasna waa maxaa? lambarkiina aan helaynaa waa maxay? waa upper class limitki ama upper class boundarygii weeyaan. tan kalena maxay noqonaysaa? tan kalena waxay noqonaysaa koob iyo 20.5 25 see lagu helay. marka koobaad 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 waxaan haysanaa class roots baan haysanaa. marka muhiimaddu waxa weeye 6 marka xagee ka timiday waa waxa weeyaan 1 2 3 4 5 6 waa 6dii midpoint weeyaan. 6dii midpoint waxa kala keenay. marka class intervalkaas loo helayaa ka waxaa lagu helayaa 25 minus 7/2 waxay noqonaysaa it is 21.5. maxaa xiga? isla iyadii 25 plus 7/2 maxaan helaynaa 28.5. labadaa marka la isku daro oo laba loo qaybiyo maxaan helaynaa 25kaasaan helaynaa. ka xigta waa 32 soma 32 minus 7/2 waxaan helaynaa waa 28.5 iyo 32 plus 7/2 waxay noqonaysaa 35.5. marka labadaa la isku daro laba loo qaybiyo taasaa loo helayaa. ta saddexaad saynu ku helaynaa taa 39 minus 7/2 waxay noqonaysaa 39 minus 7/2 waxay noqonaysaa 35.5 iyo isla iyadii 39 plus 7/2 waxay noqonaysaa 42.5. marka labadaa la isku daro loo qaybiyo waa ka saasaan ku helnay ka dhigan tahay. marka maxaana la weydiiyey bay ahayd class boundaries. kuwan waa lower boundary, kuwana waxa way noqon lower class boundary, kuwana upper class boundary ba la yiraahdaa. marka labadiiba saasaanu ku helnay. or
si kalena waan heli karnaa. Si kalena maxaan ku samayn karnaa? Si kalena waxaan ku heli karnaa okay, si kalena waan ku heli karnaa ninkan aan ku dhismay laakiin inay for time being su-aasha saddexaad noo gudbiya. Su-aasha saddexaad, the class limit assuming the age quantity is the age completed last birthday. Last birthday macnaha whole number ka dhiga buu leeyahay. Lambarka fractionadaas iyana meesha ayna jirin buu leeyahay. Marka annagoonaan taa tixraadin sidee baan ku helaynaa? Marka metrika kale weeyaan xaggana. Metrika kale marka muxuu noqonayaa obvious. Pointayaashii baa xaggan ba laga reebayaa. Waa kuwan 22 up to 28, 29 up to 35, 36 up to okay. Su-aasha xigta aan xaggan aan ka fiirino waxa weeyaan waxaan yidhi prepare a bivalent frequency. Bivalent frequency ilaa imika waxaanu fiirinaynay laba shay baa kala qaybinaynay. Laba shakhsi baa yaan meeshii yaan x iyo y geediba yaan isu dheelitirinay bay ahayd. yaa imise xaggan waxaanu leenahay laba nooc ba yaan leenahay oo ah Mr. Hebel iyo Mr. Hebel oo parallel labaduba ay wada socdaan. yaa marka frequency distribution-kiisa see loo samayn lahaa weeyaan meesha waxaan su-aasha meeshaan ku taalo. Marka meeshaan xaggan imika bivalent buu leeyahay. Bivalent muxuu ku noqday? waa laba case buu leeyahay. kow labo kana xaggaa ayuu kasii socdaa. saas maadaama saa u socdo qaybtani waa qaybtii xaggaa saa usii socota weeyaan. afar ha u malaynayna waa labo xaggaa soo socda. marka xaggan markaan su-aashaan ka fiirino muxuu ka bilaamayaa? lambarka ugu yar waxa weeyaan 10, ka ugu badanna waxa weeyaan 14. kuwan mark in low imtixaankii uu low ku keenay intee buu dhexeeyaa 10 ilaa iyo 14. Dhibicdii uu ka keenay statisticsna intee u dhaxaysaa? waxay u dhaxaysaa 21 20 ilaa iyo 29 bay u dhaxaysaa bay ka dhigan tahay. right? marka waxaa la yidhi prepare a bivalent frequency distribution. Bivalent frequency distribution sameeya for 20 students waa 20 students ayaa meeshii imtixaan qaaday. Also obtain the marginal frequency. Marginal frequency na raadiya. Marginal frequency distribution of the marks in law and the marks in statics and the conditional frequency. haddana conditional frequency of marks in law when marks in statics are 23 markuu noqdo kana conditional frequency ka diyaariya buu dhahay. and the conditional distribution of marks in statics as well as statics maxaa ka diyaariya markuu of log markuu yahay 12. marka seen ugu diyaarina waxaan u diyaarinaa marka waxa kan su-aashina la siiyay waatan su-aashina la siiyay xaggan ku xusan tahay. marka koobaad waxaan sameynaynaa let us denote them. waxaan sameynaynaa mark of x bal aan raano kuwan kan x aan raano kanna y aan raano. lowga x aan raano statisticskan y aan raano. that means x markaa wuxuu ka bilaabaya 10 ilaa wuxuu dhaxaynayaa 14 buu dhaxaynayaa way ka dhigan tahay. right? kan kalena wuxuu dhaxaynayaa 20 ilaa iyo 24 buu dhaxaynayaa. sorry kaas waa 24 weeyaan xaggaas 24 20 ilaa iyo 24 buu dhaxaynayaa. those markaan aan waxay ka dhigan tahay markaa tablekan diyaarinay wuxuu noqonayaa 10 ilaa iyo 14. imisa xaraf baan ku haysanaa? 10 11 12 14 waa 5 as well as 20 ilaa 24 imisa u dhaxaya isagana waa 5. marka labada la isku dhisto maxay noqonaysaa? waa 29. marka table ka kooban 29 cell yaan diyaarinaa ka dhigan tahay. marka cell loo diyaarinayaa muhiimadu waa inta waxaa loo diyaarinayaa x iyo y ba loo isayaan goordhaweyd maxaan niri let x maxay noo noqdo baan niri lowgeenu ha noqdo baan niri x y-guna maxay noqdo baan niri y-guna statics ha noqdo. marka x saasaad u sharaxaysaa y-gana sana u sharaxaysaa. x-giisana u sharax xageeban ka bilaabnay 10 11 12 13 14 baad oranaysaa. waa isku soo wada keenaysaa meesha. waxaan ku dhahday staticsgana xagee ka bilaabayaa min 20 ilaa 24 hoos bas yaad u taxaysaa bay ka dhigan tahay. hoos bas u taxaysaa bay ka dhigan tahay. then waxaad imanaysaa
mark toban x toban buu leeyahay soo ma toban hal buu ku leeyahay x toban buu hal buu ka leeyahay laba iyo labaatan iyo toban laba iyo toban then totalka xaggan maxaan ka helaynaa total shan yaan xaggan ka haysanaa bay ka dhigan tahay wax koo iyo labaatan waxaan ka haysanaa xaggan waxay ka dhigan tahay markaa waxaan ka haysanaa toban iyo laba iyo labaatan ag toban iyo saga iyo afar iyo labaatan toban iyo laba iyo labaatan soco toban iyo saddex iyo labaatan toban iyo saddex iyo labaatan soco toban iyo laba iyo labaatan toban iyo laba iyo labaatan toban iyo saddex iyo labaatan toban iyo saddex iyo labaatan saasaan u sharaxnay shan bay noqotay koob iyo toban baan dal tegaynaa koob iyo toban koob iyo labaatan koob iyo labaatan koob iyo toban koob iyo labaatan koob iyo toban koob iyo labaatan mise goor baa markaa leenahay macnaha xaggaasi waa laba goorba xaggaas yuu soo noqday kaasina wuxuu soo noqday laba goor kaasina laba goor total shan goor baa meesha ku jirta ka dhigan tahay then kuwan sanaan u dhigaynaa haddana sanaan isugu daraynaa koob iyo koob marka la isku daro waa labo laba iyo koob marka la isku daro waa saddex laba iyo koob iyo koob marka lagu daro waa shan sanaan isugu daraynaa then totalka iyo totalkan must be equal waa in labaatankii arday ay noqdaan marka labaatankii arday sana ayay distribution u noqday this type of distribution waxaa la dhahaa bivariate frequency table baa la dhahaa bay ka dhigan tahay su-aashiin la weydiiyeyna waa saasan kaga jawaabnay ka dhigan tahay okay su-aasheeda labaad ee xigta waxaana layidhi soo diyaariya marginal distribution iyo conditional distributionka labadaas soo diyaariya baana la dhahay marka marginal distribution waxaan sameynaynaa x inta x marka hore xaggaasaan usoo sharaxaynaa x kaliyaata intii frequencygeedii laga soo helayna xaggan aan kasoo sharaxaynaa then x totalka waan sheegaynaa frequencygeedii totalkiina waa kan this will be for x for y-gana the same time labaatan intaan ka bilaabno ilaa afar iyo labaatan intii gooreysoona noqotayna sana iyo sana u sheegayna kan nooca marka loo sharaxo maxaa la dhahaa its marginal distribution conditional distribution buu haddana dhahay conditional distribution of x when y is equal to 23 markuu y uu la mid yahay saddex iyo labaatan right that means taa saddex iyo labaatan yaan ka saaraynaa ka dhigan tahay away saddex iyo labaatan saddex iyo toban saddex iyo labaatan then saasoo dhignaa kana saasoo dhignaa kan noocan oo kale maxaa la dhahaa conditional distribution baa la dhahaa waa kanka markuu yahay conditional distribution of y when y is equal to laba iyo toban markuu yahayna 1111202 should be 5 kan 6 okay marka maadaama mawduucu yahay yaro introduction kan ugu dambeeyey bivariate kan waa advanced level maadaama uu yahay inta kale oo dhan dugsiyada hoose lagu soo dhigtaa marka bal aan degdeg aan dul marno waxyaalaha muhiimka ee meesha aan ka soo baranay ama aan meesha inaan ku qeexnayo ay u baahan tahay ta koowaad waxa weeyaan presentation of data marka la present garaynayo laba nooc baa ayaa lagu sameeyaa waxa weeyaan macna isagoo si table ahaan loo sameeyaa ama diagram ama graph ahaan baa lagu sameeyaa maadaama statistics walba kama maarmaan marka labadaas loo ogaado okay classification haddana marka waa in la sii classification is the process of arranging data into a sequence and the group according to their common characteristics or separate them into different but related parts. That means communication is the process of arranging dataga ama iyaan sequence baan isku soo xigsiinaa markaan ninkana saa soo qeexay kan kale classification is a scheme for
breaking a category into a set of parts called classes ayaa loo sii kala qaybinaya. ninkana saasuu yidhi, it's more or less waa theory, waad akhri kartaan. Basis of classification, for classification marka la sameeyo waxaa say baa lagu kala qaybiyaa, geography ahaan baa lagu kala qaybiyaa, chronological orderka lagu qaybiyaa, quantitative-ka lagu qaybiyaa, qualitative-ka lagu qaybiyaa. marka geographical maxaa looga jeedaa areas, Hargeysa, Djibouti, Jijjiga, Mombasa, saasaa lagu kala qaybin karaa. chronological orderna sanadkii 1203, 2003, 2004, 2005 months, date, year, saasaa lagu kala qaybin karnaa. quantitative-kana waxa weeyaan qualitative shay aan la qeexi karin, macnaha marka dareen marka la yiraahdo, jacayl oo kale marka la yiraahdo, waxa macnaha la cabir karin oo kale markuu yahay qualitative ba mayaan yaa lagu qeexiyaan, ku qeexayna ka dhigan tahay. quantitative-kana marka numerical value 1 gram, 1 soddon, 100, 1000, 3000, anything that can have a value can be a quantitative noqonaya marka dhigan tahay. Okay, pointigaas waa point inaan aan ogaano muhiim ah weeyaan. marka qualitative-ka markaan sii qeexno, qualitative-ka waxaa asnani waa waxa aan la cabir karin, it will be category data based on non-quantitative weeyaan, non-quantitative phenomena which are not capable of quantifying, ama aan la cabir karin weeyaan. marka isaga laftirkiisa marka laba shaybood buu sii kala baxaa, simple iyo manifold baa lasii kala dhahaa. simple-ka marka wuxuu noqdaa markuu it contain laba shay, markuu laba category markuu leeyahay waa simple, laba iyo wax ka badan markuu yahayna waa manifold buu noqonayaa. macnaha qualitative classification-ku macnaha baad oran, da'dii baad sii socon, ama male female baad oran, female haddana color baad sii geli. shaygii markaad laba goor saddex goor markaad sii kala cabirtid wuxuu noqonayaa manifold buu noqonayaa. haddii aad laba goor lagu joojiyo wuxuu noqonayaa it was simple buu noqonayaa. for example markaan ka beerino populationka imka maxaa usii qaybinay 5 meelood baa loo sii qaybiyey: genus, highly intelligence, average intelligence, below average iyo dull. waa populationkii marka ayaan saa usii qaybin. kanimka muxuu yahay? it was a simple kind of classification of qualitative data bay noqonaysaa. manifold si lasoo sheegay, manifold refer to dividing a population into a classes based on studying a multiple attributes simultaneously. For example, we can divide the population into 2 classes, male and female. haddana waan sii kala sheegi karnaa marka male iyo female, smoker, non-smoker. marka halkii shay uu sii kala qeexay wuxuu noqonayaa manifold classification buu noqonayaa. taasina waa shay lama humar in la ogaano loo baahan yahay ka dhigan tahay. quantitative-kana waa maxay nalay? waa shay aan cabiri karno ama cabir ula socon yahay yaa la dhahaa qualitative. kaasoo la mara age, height, weight, price, product, income, expenditure, sales, profit, everything wax number ama shay ama miisaan ama ula socdo waa kalagu cabirayo waa qualitative baa la dhahaa. that kind of data will be quantitative. quantitative-kana markaa isaga laftirkiisu laba usii kala kacaya, group iyo ungroup iyo 4 buu usii kala kacaa isaga laftirkiisa. kaanoo fiiro waan eegi doonaa. marka imka xaggan waxaan aragnaa min 101 ilaa 214 baa jira. marka shaygan waa shay aan cabiri karno. maadaama aan cabiri karno, it should be quantitative baa la yidhahdaa ka dhigan tahay. each class has a frequency associated with it. The classification is referred to as a group frequency. imika kani maxaa la dhihi karaa? kani waa group waa lisugu kaakaanay. noocan oo kale maxaa la dhahaa? group baa la dhahaa. group frequency distribution baa la dhahaa. kuwo kale hadduu hal kale uu noqon lahaana muxuu kaasi noqonayaa ungroup classification or raw data simple oran karnaa. okay, haddana wax kaloo aan xagga aan ogaano nolo baahay wax weeyaan variables wax weeyaan cabirada la socda shay walba aan sameeyno. cabirayaasha meeshaan ku tilmaamino 1 kilo, 2 bags, 3 units such as years, months, centimeter, etc. kuwaasoo dhan maxaa la dhahaa? variables baa la dhahaa. marka variables laba u kala sii kacaa, kaasoo ah continuous variable iyo discrete variables baa la kala dhahaa. discontinuous variables baa la dhahaa. continuous variables are those that can take on any possible value within a specific range.
within a specific range iyo intuu down ayuu qaadan karaa. Matalan age of the student haddaan dhahno from 6 up to from 10 up to waxba markaa meesha yaalla bay ka dhigan tahay. Discrete ama discontinuous variable laakiin waa fixed buu leeyahay markaa. The variable are those that cannot take all possible values. Value walba markaa ma qaadan karaa within a specific range. For example, the mark obtained by student. Mark obtained by student waa imsoo hela boqolkii intee ku helay 360. laakiin abcd hadduu noqdo xaggan soo gelaya. hadduu noqdo boqolkiiba wuxuu keenay boqolkiiba 90 de waa cabir aan laga dhaqaaqi karayn oo la bedeli karayn. that kind of dataas maxaa la dhahaa discrete variable data la dhahaa. taasna waxa inaan ogaano loo baahan yahay weeyaan, maadaama mawduucyadeena dambe ayaan aad u isticmaali doonaa. xaggan frequency distribution saan sheegnay waxaa lagu sheegaa 4 nooc haddana ayaa lagu soo bandhigaa frequency distributionkaas, kaas oo ah isagoo aan organized ama aan grouped ah oo ma raw data ah, isagoo aan grouped frequency distribution ah, isagoo marka hore raw data ah, discrete or ungrouped frequency distribution ama grouped frequency distribution ama continuous frequency distribution. marka rawgan most probably waa kii aan markii hore sidaa uga kala daadsanaayaan labadana aad uga shaqayn doonaa waa kuwan kan which is group iyo ungrouped. maadaama ungroupedkan rawgan uu xaggan soo dhexgeli karo kan uu soo dhexgeli karaa 1 iyo 2 meel waa la isku keeni karaa, marka 4 iyo 3 na iyadana waa la isku keeni karaa. maadaama kan group frequency kaasa si kala baxayo noqonaya ama continuous ama not continuous, macna ama inclusive ama exclusive ayuu noqon karaa ka dhigan tahay. okay, intaa tahay basic principle kaas marka statistics in laga shaqeeyo loo baahan yahay lama horaanka ah waxa weeyaan ta koobaad type of classes. classka marka aan qaadanayno the class should be clearly defined and they should not lead to any ambiguity. Further, they should be exhaustive and mutually exclusive. waa inuu mid kale inuu kusii waa inay mid walba inuu iskoolisi istaagi kara bay ka dhigan tahay. ta kale labaad in marka labaad la ogaado wax weeyaan number of class saan goordha way soo sheegnay maxaan ku heli karnaa qaacidadan aan ku heli karnaa. taasna waa pointiga meesha xiga ee loo baahan yahay. marka kan laftirkiisu waa limitation buu leeyahay. marka xaggan uma baahna kuwa dugsiyaasha hoose dhigta inay meeshan inay mawduucan ogaadaan, liannahu iyaka su-aalahan ilaa heerkan ma gaadhiyaan aqoontoodu. waxaan marka qaacidadan la siiyey meel ayna ku shaqaynaynin baa jirta. meeshaas ku shaqaynaysa waa xagee waxa weeyaan n-daasi hadday min 1 ilaa 4 1 2 3 4 ilaa 4 hadday noqoto waxaan helaynaa sax ma imanayo. ta kale labaad 20 hadduu kasii batana taasina markaa wax macquula markaa ma heli karna ka dhigan tahay. markaa si aynu heli karin bal aan fiirino. if n is equal to 10 hadday noqoto buu yidhi waxa weeyaan logarithm of 10 3 plus 10. marka logarithm of 10 ta xaggaas maxay noqonaysaa almost waa 1 bay ka dhigan tahay. 10 after 10 waa 1. logarithm of a is equal to 1. that means hal lagu daray 3.1 waa 4.32 approximately waa 4, right? if n is equal to 100 maxay noqonaysaa marka tani waxaa xaggan loo soo dhigay we have to rounding up 1 durkinayna 4.3 markay noqoto rounding up to 4 bay noqonaysaa. tan rounding to 8 rounding 10 saasa loo sameynaya. walaakin accordingly between 4 and 20 which is a very reasonable number from a practical point of view is restricted buu yiri. waa intaa min 4 ilaa 20 class widthgiisu intaa u dhaxaysa baa lagu shaqayn karaa. hadduu intaa kasii bato khaladaad baa imanaya bay ka dhigan tahay. okay, however the rule is felt the number of observation is very large or very small. markuu numberku aada u weynaado iyo markuu aada u yaraadaba macnaha macquul ma shaqaynayo buu dhahay. taas sabab ku shaqayn xaggu soo qaacay taas waa la fiirin karaa. marka maxaan uga baahanahay frequency distribution kan markaa sameynayno marka hore xagga koowaad markaan saa u qeexayno waa inuu ay saa usoo yaraado dhexbartanka inuu sii bata xaggana kusoo yaraado waa inuu graafka noocaasa uu noo noqdaa markaan aan sameynayno
that means imika qaybtan waxaan leedahay dadka daraasaadka researchiga sameynaya waa inay ardayda markay soo qaadan ka tirada ugu waaweyn in xagga soo dhigaan maaha tirada ugu waaweyn dhaxbartanka waa marka xagga ay odifkaas waa inay yaraadaan markuu noocaas noqdo most probably figure-kan qaadnay good assumption baan ka helnay nacam analyticaadkan sameynayna good assumption baan ka helnay nala ka dhigan tahay size of class interval saddexaad waxaan laba muhiim inaan ogaano u baahan tahay waa size of class interval maxaa lagu helayaa waa it is a range over number of classes baa lagu helayaa range ama class widthgiisii baa loo sii qaybinayaa bay ka dhigan tahay okay that means range over k rangiga maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa maximum ka yaa laga sii naaqusaya minimumkaas ama large small laga naaqusaya large to small kan muxuu ka dhigan tahay kaas waa keedii class intervalkiisii weeyaan number of classkii buu ahaa okay point to remember haddana xaggan waxaa in muhiim ah inaan ogaano inoo baahanta waxa weeyaan the length of the class interval should not be greater than 1/4 of estimated population standard deviation class intervalka soo qaadnay inuu ka bato maaha marka aan 4 meelood u qaybino standard deviation-keena waa kani waa assumption guud oo statisticianku ay ka shaqeeyaan assumption-kana waa inaan tixgelina oon ku dhaqanaa marka type of class intervals marka laba type baa leenahay saan ugu sheegaynayba waa inclusive iyo exclusive inclusive waxaa loo jeedaa imika 39 lambarka ku xigtaayo muxuu noqonayaa 40 buu noqonayaa 40 maadaama 39 xagan kama sii bilaabino maxaa xaga jira fraction imika matalan 39.5 hadduu qof keenay hadduu meesha uu joogi lahaa ninkan lama tixgelinaya ka dhigan tahay kuma dhex jiro orderkan sameynay waxaa ka dhigan tahay min 30 ilaa 39 laakiin 39.5 hadduu midkeey lahaa ka dhex baxayaa because classa ku xigaya muxuu noqonayaa 40 ilaa 49 marka inclusive waxaa loo yiri maadaama aanu ka tixgelin weeyaan ka kale xiga waxa weeyaan waa exclusive ku laakiin kan way tixgelinayaa soo tixgelinayaa 15 iyo 19 labaatan imka datagaasana la siiyey datagana la siiyey markaas ayaan u dhigaynaa eg 15 ilaa 20 labaatankii uu ku soo celinaa xagga min 20 ilaa 25 25 ku soo celinaa marka kani waa mid continuous buu noqonayaa ka dhiganta seletrkiisu si kale ayaan u dhigi karnaa marka kan sayaan u dhigi karnaa noocanna waan u dhigi karnaa imka eg datagiina la siiyey saas uu ahaa marka datagiisana ayuu noqonayaa kan markaas uu noqdo waa exclusive kan marka sidana waan u dhigi karnaa ka dhigan tahay okay point to remember kan meesha dambe xigta waxa weeyaan class boundary baadana meesha yaala class boundary seeba lagu heliyaa class boundary waxa lagu heliyaa upper class boundary iyo lower class boundary baa jira san hore usoo shaqeynay waxaan niri upper class limit plus 1/2d goor dhawid maxaan niri 7 loo qaybiyay 2 iyo 7 loo qaybiyay 2 ayaa ku darnayna kan naaqusnay markaas su'aashaas ay taageero tahay kana مثلا imika 20 baan haysanaa 20 ka maxaa sameynaysaa 20 iyaad ka naaqusaysaa eber dhibic 5 macnaha 1/2d d-du maxaa la yidhahdaa d-du waxaa la yidhahdaa correction factor baa la yidhahdaa ka dhigan tahay waanka xageen ka helay d-daas xageen ka helay markaas d-du waxa weeyaan 20 marka laga jaro 24 waa imisa may 25 iyaan ka jaraynaa 24 iyo 25 ka jaraynaa 29 iyaan ka jaraynaa 24 iyo 25 marka class widthgan waxa weeyaan qaabka loo bedelo hadii datana la siiyo oo la yiraahdo from exclusive to inclusive sameeya ama from inclusive to exclusive sameeya marka kanan ku yaa correction factor kaas ayaan kaga soo shaqeynaa ka ganta correction factor kaas baa loo heliyaa kuwan diagonal kaas loo kala jarjaraya 24 marka 25 laga jaro waa 1 29 marka laga jaro waa 1 34 marka ka laga jaro marka ka laga jaro waa 1 marka halkaas ayaa loo qaybinayaa ka dhigan tahay hal half lagu dhuftay hal waa half upper bound ka upper kaas waa upper kan lower ka 20 kaas waa lower right lower kaas laga naaqusay
intaas waxaan leynaa waxa weeyaan waa 24 24.5 19 24 24 19 okay. This means our lower class limit, upper class limit, upper class boundary iyo lower class boundary, lower iyo upper. Mid value gan see loo helayaa? Mid value waxaa loo helayaa san aan hore sheegnay lower class limit iyo upper class limit kala isku dariya laba loo kala jeeyaa yaa loo qaybinayaa, ama lower class boundary iyo upper class boundary yaa la isku dariyaa laba loo qaybinayaa. Matala imka lambarkan aan la siiyey, lambarkan waa maxay? waa mid value marka maxay raadiye baan la yiri, waxa raadiye baa la yiri lower class maxaa la sameynayaa? waxaa la sameynayaa 1/2 20 lagu daray 24. marka xaggan waxaan haysanay waa classkaas oo ah 20 iyo 24 25 iyo 29 30 iyo 30 iyo 30 then sanaan u helinaa ka dhigan tahay, ama iyadoo pointage line saasaan u helinaa. okay, marka meel muhiima jirta, ta ugu muhiimsan waa ta ugu muhiimsan waxay when fixing class limits for a group or continuous frequency distribution, it's important to choose them in a way that evenly distributes the observations throughout the class interval. This ensures that the actual average observation in a class is close to the mid value of the class. The actual class marka mid value waa inuu markaa isla mid noqdaa buu leeyahay. Open end class is also obvious. marka I think xaggaasaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtan, inkastoo ay theory u badnayd waa wax la akhri karo. noodkaas xagga dambe aan idinku soo dhejin doonaa insha allah. markaas waxaanu bilownay waa dariskeennii statistics for data analytics weeyaan. marka qaybtan waa qayb aada u muhiima. qaybaha ku xigta ah central tendency iyo measuring of dispersion iyo regression iyo coefficients of variance, every marka in detail gebi ahaantood waan kasoo shaqeyn doonaa ilaa advanced, isagoo advanced aan kasoo shaqeyn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. marka iminka waan soo yara degdegay, waxaan soo degdegay waa example yaryar baan kasoo qaatay. insha allah inaad fahanteen baan yaan filayaa. wax tusaale ah ama comment haddaad haysataan fadlan inboxka noogu soo comment sectionka noogu soo wadaaga. waa anigoo abaadira oo hanuun kusoo gudbinayo hanuun virtual academy. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.